Assalaamu calaykum soo dhawaada. Waxaan ka hadli doonaa maanta qiso bedeli doonta noloshaada. Ayaan maanta ka hadli doonaa muuqaalkan kaga hadli doonaa soo dhawaada. Haddii ay tahay markii kugu horreysay aan soo booqataa subscribe noo saar gambalaalkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan. Haddii familka ka tirsan tahayna like noo saar asxaabtaadana u sii share garay soo dhawaada mar labaad. Waxaan dhahnaa waa qiso noloshaada bedeli doonto. Waxaan u bedeli doontaa in noloshaada guulo badan ay ka gaarto. Waa haddii ay dhacdo sida ay tahay in u samaysid ay dhacdo waxay u bedeli doontaa noloshaada mid guul leh ayay kugu bedeli doontaa. Markaa ku soo dhawaada. Qisadan waa qiso ka hadlaysa nin kalluumaysato ah iska daciif ah ayay ka hadlaysaa. Marka wuxuu ahaa nin kalluumaysato ah iska miskiin ah iska meel maxaa la yiraahdaa noloshiisa iska hooseysa isaga nool. Maalin maalmaha kamid ah waxaa dhacday in uu waxyaalihii uu ugaartii uu soo qaatay uu badda kala soo baxay soo kalluumaystay in uu u keenay xaaskiisii markaas uu ku yiri noo kari oo waxa cuno nooga sameey. Kadibna uu laabtay baddi si uu kalluumaysi kale u soo sameeyo oo waxyaalo kale uu sii beeciyo oo badda ugu soo baxsado. Waxaa dhacday markii intii uu kalluumaysiga uu ku maqnaa oo baddi uu ku maqnaa in naagtiisii malaayigii ay ka dhaxeshay luulu ay ka dhaxeshay. kadib waxaa dhacday in luuluadii gabadhii markii xaaskiisii ay ka heshay calooshi oo malaayga ay ka dhaxeshay ay faraxda ee meel dhigtay dan ninkii oo ka soo kalluumaysto haddana malaay kala wato uu guriga ku soo laabtay. Gabadhiisii oo faraxsanaa ku tiri malaayigii aan cuntada nooga sameynayay waxaan ka dhex helay luuluadan ka dhex helay. Ninkii farxad wuxuu dhahay keen soo beecina oo soo gaday. Wuu qaaday nin ay daris ahaayeen oo waxyaalahaas luuluada iyo maxaa la yiraahdaa mujawharaadkii waxyaalaadka ganacsado u geeyay markaas oo dhahay niyo ii qiimay oo iga gado luuluadan. Ninkii wuu fiiriyay luuluadii markaas wuxuu dhahay nin yahow luuluada aa wadatid hanti u dhiganto maanta ma hay ani aan kaaga gato. Nin wuxuu yiri ani iga tabaroon oo waxaa jira magaalada degan marka ninkaas u tag tusi luuluadaada waxaa laga yaabaa inuu ku helo hanti uu kaaga gato. ninkii ugu farxay wuxuu dhahay warniyo ninka dariskaada ahaa ee waxyaalihii mujawharaadka gaday haduuba ka gadan waayo warniyo maanta nasiiba ku soo doonta lacag fiican ay bahashan kugu dhufa doontaa noloshaada wuxuu dhahay waa ka kaaftoomi doontaa kalluumaysi dambe inaad ku sii jirtid. asagoo faraxsan oo baxay wuxuu tagay magaaladii oo aaday ninkii loo tilmaamay uu tagay ninkii uu bahasha soo xurniyo luuluadana wata inay iga gadataan rabaa. ninkii luuluadii uu fiiriyay markaas oo dhahay warniyo luuluada aa wadatid hanti u dhiganta maanta ani aan kaaga gadan kara ma haysti laakiin hal nin ugu hoo dhahay luuluadana maanta aa wadatid ka gadan karo. markaas uu yiri haye ninkaas aan ku tilmaamaa ninkaas u tag asaga ka gado. wuxuu dhahay waayahay ee tilmaan wuxuu dhahay magaaladan aan deganahay ninka xukumo ninkaas kaliya haysto dhahanti uu kaaga gadan karo luuluadan asaga u tag asaga kaaga gadahaye. ninku wuxuu dhahay warniyo luuluadan aan wato ninka magaalada haysta ma qof kale uga gadan karo hantideeda qiimeyn kara ma jira maya. ninku wuxuu dhahay warniyo hadirtaan leeyahay hantinimo ku soo doonatay nolosha hore ku jirtay haddaba ka bixin tii hodantinimo hadda ku soo doonatay haye waa baxay ninkii oo wuxuu u tagay qasriga uu degnaa ninka magaalada xukuumay qasrigii uu tagay markaas wuxuu dhahay niyo luuluadana wata inay iga gadataan rabaa. ninkii boqorkii magaalada ka taliyahay luuluadii uu fiiriyay markaas wuxuu dhahay niyo luuluadaad intaasan ka sii karaa ma ku dhihi karaani laakiin hal midan ku sameynaa waa bixi hoo dhahay muddo 6 saacadood aan ku siinaa waxaa galay qaybtayda keedka oo dahabkii iyo hantidii iyo adduunkii iyo waxyaalihii qaaliga hadan ay ku xariisan yihiin qaybtayda keedkan ku fasaxa oo dhahay qasaanadeedan ku fasaxa muddo 6 saacadood ah haysataa wax alla iyo wixii ka qanciya ka qaadan kartid ka qaadan si kale luuluadan kaaga gadan kara ma lahan wiri beecaas way ma ku dhihi kari. ninkii kalluumaysatada ahaa 6 saacadood oo hadda ninka magaalada ka taliyahay qaybtayda keedka ku fasaxay ku dhahay waxa qaadan kartid 6 saacadood dalo. ninkii wuu maagay wuxuu dhahay macquul ma ahan wuxuu dhahay niyo boqoro ani 2 saacadood la igu filan oo nin kalluumaysato ah iska miskiin ah iska basiid ah nolol hooseyso liidati signal anigoo ka 6 saacadood wuxuu ku badan tahay boqoro 2 saacadood la igu filan 2 saacadood la iga dhigtid 6 saacadood in awdid leema ay kala yareysid ma yaa lahay 6 saacadood haysataa wax alla iyo wixii ka qanciya ka qaadan karto soo qaado. ninkii waa baxay qaybta keedka oo galiya saawa meel weyn oo 3 qayb u qaybsan. qaybta koowaad oo ah dahabkii maxaa la yiraahdaa lacagtii
hantidii wax alla iyo wixii qiimo lahaa ku jiraan. qaybta labaad uu fiiriyo saa waa jiif qurux badan oo hadda xariir ah haddaa ku seexato daal iyo wax alla iyo wixii ku hayn ay loobaysid adigoo fresh ah hurdo raaxo leh ah qaadanaysid. saa qaybta saddexaad uu fiiriyo waa cunto iyo cabitaan hadda boqorada loo diyaariyay weligiis uusan ku riyoon xataa inuu dhamiyo iska daay. ninka wuxuu dhahay saddexdan qayb wax alla iyo waxa qaadan karta ka qaad ahaa runiyo haddaa qaybtan ama bagaajinsan uu qaybta cuntada hadda inta tago caloosha soo buuxsado tamar fiican dahabkan iyo lacagtan ku daldala kara soo qaata ka waran wallahi waa ra'yi fiican. ninka fagu dhahay wuxuu tagay qaybta cuntada oo saddexaad u gudbay meeshii intuu dhex galay wuxuu cuni karaa hadda wuxuu cabi karo caloosha soo buuxsaday markuu dhargay oo hadeertaana tamar fiican alaabta ku daldala kara 6 saacadood aan soo helay. qaybtii saddexaad uu ku soo baxay asagoo u socdo qaybtii koowaad oo dahabkii iyo lacagtii yaaleen asagoo u socdo oo qaybta labaad markuu marayo wuxuu arkay jiifka quruxda badnaa markaas runiyo caloosha soo buuxsatay suusaydna u soo dharagtay jiifkan xariirta hadda inta wax yar seexato wuxuu dhahay cuntadan cunto ay kugu degto ka warno dhah hadda tamar fiican waa soo heshay xoog tamarta sii badsano wax yar hurdo qacay ka soo sii tamarta ku sii badatay 6 saacadood adaldalatid waxay jiifkii saan u seexdaysa hurdada qabto waa la tagtay 6 saacadood la dhaaf markaas wuxuu ka war helay uun askartii boqorka oo meesha qasri ka shaqeynaysa oo labada garbood kaga dhagan oo sii wadaan war xaga iyo wadan 6 saacadood ma dhamaan wali alaabta aan qaada lahay ma qaadane markaas dheen warniyo doqonka kalluumaysata ka doqonsan waligan ma arkin dheheenin baahidi ku haysay iyo rafaadkii ku hay haduu boqorka 6 saacadood ku siiyo oo ku dhahay meeshan waxa ka qaadan karta ka qaado aqligaada maka gudbi waayaan leeyahay cuntada iyo jiifka 6 saacadood boqorku ku siiyo meeshan gal waxaan dahab iyo hanti iyo lacag iyo adduun yaalo aqligaada muxuu dhaafi waayaa la ina cunto soo cunto meeshan seexato war waqtigaada waa dhamaaday warluulu eegana ma hiisooro alaabtii soo qaada la dhahan soo ma qaadan markaas la heshiiska adiga waqtiga uu ahaa waa gaartaa la adiga ka faa'iideysan weysay 6 saacadoodna waa dhamaatay hadda asoo banaanka waxa loo baxshay kor loo siido hatta cagiisa aan ku socon banaanka marka lagu tuuray asagoo cagacad waxba aan wadan luulu ana laga soo reebtay waxna wadan sidiisu cagacad yahay banaanka loo soo tuuray. qisada marka intaas ay ku eg tahay laakiin cibrada iyo faa'iidada ku jirta qisadan maxay tahay horta luuluada ninka uu watay waa nolosha maanta adiga aan nooshahay ka shakhsi ahaan ka xaliima ahaan ka faarax ahaan nolosha maanta adiga aan nooshahay naftaas kor iyo hoos kaaga socota maanta waa luuluada maanta ninka uu watay ay haysatid 6 saacadood ee ninkan la siiyay ee la dhahay meeshan gal ee wax alla iyo waxa ka qaadan karta ka soo qaadane waa nolosha maanta adiga aan nooshahay maalintii aad dhalatay ilaa ay maalinta ka dhimanaysid life-kaada intaas ee socdo waa 6 saacadood boqorkii dhahay ninkan waxa ku soo qaadan karto ku soo qaado ka waran noloshaadii haday dhaafi weyday inaad bariisi baastay iyo 2 xabo canjeera soo shaqaysataa cunto kadibna seexaad haday dhaafi weyday ka waran aakhiradaadii iyo nolosha dambe iyo quruxda dambe iyo hurdadii dambe iyo wixii nolosha dambe dhan ka fikiri weydid iyagu wuxuu leeyahay adduunkaadan u shaqayso sidii ina waliga noolahay aakhiraadan u shaqayso sidii ina bari dhimanaysid marka qofka muslimka waxa laga rabaa in aakhiradiisna u shaqaysto sidii inuu bari dhimanayo adduunkiisna u shaqaysto sidii inuu waligiis noolaanayo oo nolol waaritaan leh loo balan qaado kan u shaqaysto adduunkiisa aakhiradiisna sidii inay bari nafta ka dhacayna u shaqaysatid marka ma aan 2 xabo canjeerada ay cunaysid iyo hurdada ay hurdaysid noloshaada inay ku meereysato oo wax ka dheer bay arki weyda ma ahan marka cibrada iyo faa'iidada ku jirta qisada ayaa waxay tahay intaas marka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysataan wax badan noloshiina ka bedeli doonto qisadan soo dhawaada hadii ay tamarkii kugu horeysa aan soo booqataa subscribe noo saar gambalaalkana furo si fiidiyoada cusub ku soo gaaraan hadii hore aan la joogtay familkii asxaabta ka mid tahay like noo saar haddana asxaabtaada u sii share garay soo dhawaada martimatihiin meesha waa meeshiini marka ku soo dhawaada hadii ay jiraan qisooyin kale aad jeceshiin idin kaga soo sheekeeyo qaybta commentiga iigu reeba oo insha Allah waa idin kaga soo hadli doona soo dhawaada